aan joogo hoostiisa inaan leegelin balaahi ka baryo dadka waxaan aad iyo aad uga yaabaa dadka xalaala soo kala yaacaan walaa marka qofku dhinta waxaad arkaysaa waxaase usoo kala ordayo meelkiimada la aqoono majaafidii balaayi horta waxay wax ku xabaalaan xagge u yaallaan naagtan wayba yaaban tahay waxay taagan tahay dadka aniga iyo xabaala horta waxay dhahday ilaahay aniga waxaan ka baryay aana ka baryaa haddana aniga haddii aan dhinto dhulkan aniga aan dul saaranahay hoostiis inaan lagu aasin walaalka kaafinaaya inaad wax u sii taraysi hadaad noloshiisa waxubaad samaysay warkiyani waa xusuusi waanad waa iyo dardaara walaal sidaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawow janaalkayga arwaax shariif fadlan haddii aadna weli subscribe saarin please subscribe like share and comment haddii oo mar walba inuu message kusoo dhaco ama gambaleelka inuu kusoo dhaco haddaa rabtid gambaleelka furo labada dhegna u taag gambaleelka marka maanta maxaan ka hadli rabnaa maanta waxaa inaan ka hadalna aan u baahannahay maxay tahay maanta aniga waxaan rabaa inaan ka hadlo qofta la dhahayay deeqa afra oo dhahday aniga haddii aan dhinto geed halii saaro iyo waxyaalo saas iyo markan hadda waxaan rabaa reaction in aan ka bixiyo marka waxaa waaye geed haddaa lagu saara ama haddaan geed lagu saarin siday noqon doonto waa la arki doonaaye yaana hadalkana kasii hordhicine ila daawada bal hal mar bismillaah magacaygu waa deeqa aadan muuse deeqa afro waxaan fiidiyowgan duubayaa 12 bisha 7 2017 maalin jimca waa salaamayaa dhammaan inta fiidiyowgan daawata ama dhegeysan doontaba waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan kaa qaadnay wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu marka horna inaa video kasii hordhacmarabe laakiin salaanta aan ka qaadayay awgeeda ayaa aniga waxaan hadda u sameeyey u stop gareeyey marka waxaan rabaa salaantana waxaa waaye muslimiinta ka dhexeysaa qofka haddii uu ku salaamo waxaa waaye waa inaad salaanta aad ka qaadaa waxaa waaye waa wax anaga dhabarkeena saaran ma garatay oo muslimiintan lagu yaqaano in oo salaanta la iska rido okay kusii soco haddana waxaan rabaa halkan inaan kaga hadlo arrin aad iyo aad muhiim igu ahayd runtii aan muddo badan ka fakarayay ilaa yaraanteydii ilaa haddaba ilaa markasta aan aad ula fakari jiray waan dareensanahay runtii in kuwa badanoo idinka mido runtii aan ku yara aragti duwannahay laakiin muhiimadeedu waxay tahay horta anugu waxaan raba inaan soo gudbiyo taasaa naga aaday ugu muhiima sidaan la soconaba waxay dhahday inaan wax idan soo gudbiyo ama wax inaan ila wadaago ayaan rabaa laakiin lagama hordhace waxaa waaye waxaan dhahday waa inaan anaga aan ka dhursugnaayo waxaa waaye waxay dhihi doontane aan fiirinaa marka waxaa waaye reactionkana see nagula muuqatane aan ka bixin doonaa insha allah horena ugu sii soco inaan lay aasin qofta waxay dhahday inaana lii aasin inaana lii aasin waan fiirinaynaa kusii socoba arrintan waxaan ka fakerayay runtii muddo aad iyo aad u fara badan dhinaca diintan ayaan ila caaray markiiba sababtoo waxay dhahday arrintan in muddaya ayaan ka fikirayay dhinaca diintane yaa ligaga cararin marka waxaa rabnaa haddana inaan sii fiirino bal waxay dhahday arrintan waxaan ka fakerayay runtii muddo aad iyo aad u fara badan dhinaca diintan ayaan ila caaray markiiba sababtoo okay waxay taagan tahay dhinaca diinta yaa ligaga cararin
dhinaca diinta ma aragtay yaa lagaga cararin marka aan sii fiirna bal waxa weeyaan diinta islaamka oo aniga aan ku dhashay ee aniga aan jeclahay ee aan ku dhiman doono insha allah si wanaagsan uma aqaano ilaahay subxaana watacaala ii kastoo inaan si wanaagsan u barto insha allah mana garan karo runtii culayska ama cadadka ay ka qusayn karta arrintan runtii anigu ma garan karo hadda mid ii cabiran ma aha waxay dhahday aniga diinta si fiican uma garanayay waxaana jeclahay aniga diinta in oo adiga allahu mustacaan aan sii bartana waan jeclahay marka waan fiirinaynaa bal waxaa waaye qoftaan horta qof si wanaagsan u hadlaysane way igula muuqataa laakiin aan kusii socono bal dhinaca diinta weli kuma eegin laakiin dhakhaatiir badan baa la xidhiiray arrintaa macnaha waxaa ka suurtageli karaa waxaa ka macquulka ah siday u dhici karto waxaweyaan runtii inkastoo dhakhtarkii ugu dambeeyey runtii uu iniga jebiyey uu igu yiri adiga waxaad ka baqaysaa qabriga iyo waxaad ka baqaysaa lagu xabaalo laakiin isagu siduu ii sheegay in isagu maxaa la yidhahdaay uu saxiixay markuu isagu dhinto okay waxay dhahday dhakhaatiir badan ayaan la xiriiray dhakhtarka ugu dambeeyena aniga wuu iniye jebiyey marka waxaa waaye waxay kasoo bixi doonaa haddana aan sii fiirina bal ha in la gubi doono subxaan allah marka aniga ahaantay subxaan allah ay taagan tahay la gubi doono iskadiid waxay tahay iyadoon wax diin ah meesheeda loogu tegin oo la ixtiraamayo oo maxaa la yidhahdaay aan diinta meesheeda loogu tegin haddana in fikrad ahaan in la ixtiraamayo oo diintana meesheeda aan loogu tagin ya diintana waxay taagan tahay aana meesheeda loogu tagin ma garatay iyo maxaa kula system ahaan bal waxa arrintan ka suurtageli karaa in la eego adduunka maxaa la yidhahdaay dhul la-aan kama jirto iga raali noqda waa idinka raali gelinaa maxaa yeelay taleefonaa isoo galay taasna aniga qalad kuma lihi taleefonkeyga ayaa soo dhacay waan idinka raali gelinaa 100% ka raali noqda taas okay marka waxay noo maraysay gabadha waxay dhahday dhul la-aan ma jirto dhul la-aan ma jirto marka waxay soo wado waxaan jecelnahay haddana inaa weli hore a ugu sii socono waxaabaa inaa hal aan u falaqayaan rabaa hadduu ilaahay ii saamaxayo ama hadduu ilaahay waqti isiinayo insha allah marka waa kanaa haddana waxaan jeclahay inaa hore ugu sii socdo adduunka dhulbaba iska banaan dhul kasta wuxuu wadan kasta wuxuu leeyahay dhul aada u tiro badan oo lama degaana oo maydka la dhigi karo meesha waxay taagan tahay ee leedahay waddan walbo wuxuu leeyahay dhul aada u tiro badan oo baaxad leh ay taagan tahay marka dhulalkaasna oo badan waxay ka dhigan tahay marka dhulalkaas badan aniga mid ka mid ah oo dalkiina ha noqoto ama meesha rabta ha noqoto haligu duugo may ka wada ama haligu duugo yaa idin dhihine oo hali dhigo oo haadaas hay cunto ama hali gubo marka hadaladeedu waxba iskugu dhaxyaacsan aniga inaa haddana hore ugu sii socdaa rabaa inaa mar walbana aan ka hor dhaco ma jecli videoga aniga reactionka aan ka bixinayo marka haddana waxaan jeclahay in aan hore usii gudagalno aanu kusii socono aslaa in maydka meeshaas la dhigo dhul kasta wadan kasta dhulka ka banaan in maydka la dhigo had kadib xitaa haddaa fiirisi systemka ay wuxu socdaan waxa weeyaan dadka adaad eegsid dadka sii gaboobaya iyo dadka soo dhalanaya runtii waxaad moodaa dadka sii gaboobaya inay aada u tiro badan yihiin oo runtii ay aada u yar waxay taagan tahay dholalka way tiro badan yihiin oo adduunka waxay taagan tahay wuu weyn yahay dhulka ilaahay samaysta wuu weyn yahay
markaase haddana waxay dhahday maadaama dhulka ilaahay samaysto oo weyn yahay iyo haddana waxay taagan tahay dadka oo way sii tira badanayaan wax saas may ka wadaa marka haddana hore inaan ugu sii socdaan rabaa waxay ka wadaa marka dadka way sii tira badanayaan iyo waxyaala saas aniga ilaa hadda ma fahmin hadaladeeda waxbaa isku kee dhexyaacsan laakiin kow waa kusii soconaynaa weli kow ma joogto ma garatay weli kow ma joogto maanta inaan falaqeeno aan rabaa gabadhan walaasheena maanta inaan falaqeeno aan rabaa kusii soco gaboobaya iyo dadka soo maalanaya runtii waxaad moodaa dadka sii gaboobaya inay aada u tira badan yihiin oo runtii ay aada u yaraatay dhalmadii iyo tarankii inuu hadda kadib xitaa aada isu yaraan doono khaasatan hadda wadamada reer galbeedkaan joogno inuu aada wixii isu yaraan doonaan halkaasna ay fursad tahay oo runtii ay kasoo bixi karto dhul aada u tira badan oo dadka dhinta la dhigo ama lagu kiib garayo meesha laga aasi lahaa qaar ba oran doonto culayska soo food saaray ay ka sheekeynaysaa waa maxay runtii anigu alxamdulilah rabbilcaalamiin waan caafimaad qabaa laakiin waxay taagan tahay waxay dhahday wadamada heer galbeedka ah waxa waaye dhululkooda aada u weyn yahay aada u ballaaran yahay marka maadaama dhululkoodana aada u ballaaran yahay oo u weyn yahay anigana adiga allahu mustacaan dhulli iima waynin camal haddana waxay dhahday dadkii hore oo waayeeloway oo jiilka hore ahaay oo anaga naga horeeyey ama kasii horeeyey way sii duqooween waayeel ayay noqdeen ayagaana adduunka ku badan dhalinyaradii ayaa sii yaraanayso sida aniga aan u fahmay dhalinyaradii aad sii yaraanayso sida aniga aan u fahmay ee igula lacda arrinta marka inaa haddana waxaan sii jecelnahay weliba inaana ka began inaan weli kusii socono hadduu eebaraali ka noqdo marka kusii soco soomaalida waxay tiraahdaa wixii aan la huraynin horaa loo qabsadaa marka aniga waxay iga tahay wixii in horey loo qabsado unbay iga tahay waana waxaa la huray waxay dhahday soomaalida waxaana la huraynin horeyaa loo qabsadaa ayay hore u dhahday marka anigana hadda waxay igala mid tahay ama anise ra'yigayga ay la tahay ee hadda soo wadaa ee leedahay waxaan la hurayn anigana waxaa waaye hadda inaan sii digaan rabaa camal waxyaala saas iyo waxaan la hurayn saas lay noqon kartaa si kale mayla noqon kartaa aniga siduu ra'yigayga la yahay siduu ra'yigayga la yahay waana wax aniga igu taagan inaan wixii aniga fikirkayga aan ka dhiibto maadaama waxaan agu rabo weyaan anigu waxaan kasoo horjeedaa oon halkaa usoo fadhiyaa ma rabo qof kasta oo iga geeri dambeeya arrintaan qusaysaa anigu in lay aaso diyaar uma ahi qofta way digtay waxay dhahday aniga in lii aaso diyaar uma ihi aniga ma aragtay in lii aaso diyaar uma ihi marka waxaa waaye arrimahay soo wado horyaana soomaali waxay u dhahday waxaa soo wadid iyo webiga yaaweyn ma garatay marka gabadhan waxay soo wado inaan ka hor dhacna ma ahan waa in oo adiga allahu mustacaan aan ka kaweynaa horta si allala sida ugula dan leedahay ilaa gunta inaan kusii socono aan jeclahay hadduu eebaraale ka noqonay insha allah qof kasta markuu intuu nool yahay ayuu garanaysaa wax ka hadlaa wax codsadaa wax dhihi karaa inkastoo aanan rajo aada u fiican aanan ka qabin oo xitaa aniga hooyadii i dhashay oo adduunka ilaahay iyo ku jecel yaraan baanu ahay hooyadee labadadaa gabdhayga jeceshay cimrigeeda ilaahay ha rajiyo hadda koor maraan weydiiya aan ku yidhi anigu hooyo ma doonayo haddaan dhintay lee aaso waxayba taagan tahay hadda ka hor ayaa aniga hooyadeyda waxaan dhahay hooyo aniga haddaa dhinto in lii aaso ma rabo hooyo aniga haddaan dhinto in lii aaso ma rabo marku sii soco bal wallaahi waa arrin mucjiso ilaah aniga aan garan lahay ilaa hadda inaan kusii soconaan jecel lahay waa waxay ku tiri maxaa ka baxo dad iga horeysidna waan ku asturayo
awalna maxaa idhahday aan qofba mar farta ka xiri jiray walaa wadadiga nolol dambaysa u sheeg dadka qabriga neecahay yaa leegelin. qoftaan hadda ka hore waxayba dhihi jirtay aniga waxaan necbanahay qabriga yaali igelin. hadda ka hor ayaa aniga saas dhihi jiray dhahday. marka hooyadeedana waxay dhahday hooya aniga haddii aniga aan dhinto in lii aaso aniga ma rabi. hooyadeeda marka sidaa hadda fahmayna iyada ee ka wada erayga waxay leedahay hooyadeeda waxay dhahday ama haddaa dhimatid iyo haddii kalebo naaheedhe aniga waan ku asturaa camal, naaheedhe aniga waan ku asturaa, warkaas hayla imaanna camal. warkaase hayla imaanna camal sidaa anigu u fahmay. laakiin maanta anaa halkaan lasoo fariistay ilaahayna talaan saaranaya insha allah inaan la aasin oo aan dhulkaas anigu hadda aan ku dul qorxoonahayo aan ku dhashay aan ku qurux badanaan joogo hoostiisa inaan leegelin baan ilaahay ka barya. dadka waxaan aad iyo aad uga yaabaa dadka xalaala soo kala yaacaan ma alaala marka qofku dhintaa waxaad arkaysaa waxaasa usoo kala ordayo meelkiimana la aqoona majaafidiya balaayi horta waxay wax ku xabaalaan xagge u yaallaan. naagtan wayba yaaban tahay waxay taagan tahay dadka aniga iyo xabaala. horta waxay dhahday ilaahay aniga waxaan ka baryay aana ka baryaa haddana aniga haddii aan dhinto dhulkan aniga aan dul saaranahay hoostiis inaan lagu aasin. haddana waxay sii dhahday aniga waxaaba la sii yaabanahaybo dadkan waxaa ii sheegtaa oo qabriyada marka dadka ee dhintaan dadaa loo soo digaa, dadaa waxaa la qabriyaa noo faagay waxyaalo saas adiga waa loo soo digaa. dadka way ku caawinayaan, dad oo lacag jir siinaysa ha noqoto ama dad lacag la-aan adiga asxaan waay ma garatay. asxaanna waxaa waaye adduunka dhan uu ku dhisan yahay waxaa waaye ilaahay in la isku wada naxariisto. ilaaha anaga noo uumay, ilaahayna soo anaga noogu naxariisto. marka waxaa waaye waxay ahayd man laa yarxamullah laa yarxamullah. qofkaana cabsanin waxaa ii sheegtaa cabsiyaan dhihine qofka aana naxariis ayna ku jirin oo adiga taasna waxay ka taagan tahay marka ilaahayna uma naxariisanayo ma garate. marka waxaa waaye maanta wax naga yaabiyaa aragnay waxaa waaye horena waxaa waaye waa idinkugu sheegi doonaa, waan sii falaqeyn doonaa weliba dadka garweynta iyo waxsaas marka waan kusii soconaynaa. waxaan dhihi lahaa naxariis darada iska daaya. qofku markuu dhinta halkana hala keeno waxa weeyaan aniga hal gabar hadday imaydho isokay xitaa dadka mayra intay soo kala cararaan bay maxaa yidhaha dadka isugu tagaanoo jiidaan dadka meydka aniga waxaas oo dhan ma rabo. barfuunada iyo cadarada aadka u udgoonna ma jecliya yaan laygu shubin, sulkana yaan layga xirin, qabrina yaan lay gelinin. qofkii qabri iyo qoda qabri igeliya maalinta yoomal qiyaamaan haystaa ma cafiin ajar iyo xasanaadna ka heli. waxayba taagan tahay aniga qofkii qabri igeliyo aakiraan u haystaa, aakiraan ku xisaabtamaynaa. aakire inay jirto way og tahay. haddana waxay dhahday anigana haddii aniga meydkayga la aasayo hal gabar kaliya ayaa meydkayga ku filan oo aasayso. surkana ma jecli aniga in la iga xiro, surka yaa la iga xirin. qoftaan iyadoo nooleba dardaarmoosaabo mala soo haaya ma ogi. soomaaliya hore waxay u dhahda marka qofka haddii 40 oo ku jiro waxaa waaye 40 maalin ugu dambeeyo ama qofkii dhimo rabo khamiis 4 dardaarma. marka waxaa waaye gabadhan waxaa waaye horta geerida ilaah haayo aniga kama hadlayo taas, laakiin waxaan ka hadlaya gabadhan waxay taagan tahay aniga haddaa dhinto surka yaa laga xirina, haddaa dhinto dad badan yay aasina. dadka oo aniga garweynta igula soo ordaa iyo waxyaala saasna dadkaasna ilaahay ha ka cabsadaan aniga iyo aasina. aakhiriya adduunna aniga ma cafinin qofkii aniga oo waxaa ii sheegtaa oo qabri igeliyo. war asxaanaa laguu falay, qabri haddaa lagu gelinayo asxaan dhanaa laguu falay. haddana waxay dhahdaa catarkan yaala marnina aniga carafta waaba necbanahay. daqa afra carafta waa necban tahay, laakiin waan ka hadli doonaa waana falaqeynaynaa. xabaashayda qofkii ii soo ducaynaya ama si wanaagsan waxa weeyaan ii wanaajinaya dayskuud. laakiin in aniga la xabaalo oo dad ciidigu wajiga iga shushubaan ma rabo. subxaan allah
ilaahay baan ka magan gala ilaahayna waxaan dacwo kaga ahay dadkiisa iyo qabriyada. qoftaan ilaahayba dadkiisaba ilaahay dacwo ugu tahay, dadki ilaahay abuurtay eeba ilaahay dacwo ugu tahay. ee waxay taagan tahay qofka anigii aaso aakhira ma cafin. war aakhira inay jirto waaba og tahay, sabab in lagu aasa aa u diiday. gabar muslimadaa tahay, waa in lagu asturaa. haadadkaasi waxaasi inay ku cun lahayn, meel cidlo lagu dhigi lahay, ama urkaaga dadka dhibsan lahaayeen. war qabriga laguu sheegaayo iida aniga arrintan midaan u fahmay waxay tahay qoftaan hadda ka hor taariikhii hore u dhacayne oo diiniya aniga waan dhageystay. nin ayaa jiray ayaa la dhahay, ninkaasiti hadda ka hor hal igubuu dhahay waa dardaarmay, ma tukan jirin mana soomi jirin. markaasiti qofkan wuxuu u malaynaya marka ilaahay inuu ka badbaadayo, marka waaba la soo saara qofkii uunkii waxay ilaahay kun fayakun waay soo doona yeela waay. markaasiti marka lasoo saara marka waxaa la warniyaho maxaa kugu dhacay oo adiga sababta isku disha maxay tahay? markaasuu wuxuu dhahay yaa allah aniga ma tukanin, dambiye badanna waan galay, mana soomin, inta adduunka aan ku jiray aan kugu caasiyey. markana aniga waxaan isdhahayay haddii aniga aan dhinto yaa aakhira maba lagu soo saarayo. war aniga wax walbo aniga waan soo saara oo ilaahay dhahay, wax walbana anigaa sameeyey. markaasitiyaa waxaa la marka oo cabsidaada ilaahu ugu weyn way dhahay. inaa adiga aa jirtana waa ogaa anigana qof muslimaan ah, laakiin cabsidaada ugu weyn. qofka ilaahay saas ugu cafiyey. gabadhan marka waxaan u malaynaa aniga maskaxdeeda ee la tahay taariikhdaas inay dhageysatay oo waxay rabtaa marka ilaahay qofkaasiti ma uusan ugu talagalinba oo waxaa sii sameey ma dhigin ilaahay soo adiga kuu cafiyey hadduu ilaahay kusoo saara xataa niidiis kuma jirin. laakiin niidiis waxaa ku jirtay maba lagu soo saari doono, aakhiro maba lagu soo saari doono ayaa niidiis ku jirtay. laakiin iida laga yaabay inay taariikhdaas ay dhageysatay, taariikhdaasna ay ku duugan tahay, ay aaminsan tahay, marka gambashay raadinay. aniga saan u fahmo waay wallahi aniga saan u fahmo waay. okay waana kusii soconaynaa. anigu khaasatan waxaa ninka qofka wuxuu yidhi qof baa yidhi baa layidhi qof aniga yiri dad iska reeb. anigu waxaa weeyaan arrinteeda ka hadlaya waa taas, ma rabo in la aaso. dhul qurux badan baan ku dhashay, waxa weeyaan xitaa dhulka aan dan cabirto oo dhulkayga dib ugu noqdo meesha aniga aan ku dhashaan jeclaan lahaa in geed la saaro. anigu gabadha waxayba taagan tahay aniga waxay taagan tahay in aniga geed la isaaro aaba rabaabo, ma garatay? waxay taagan tahay aniga geed in la isaaro aan rabaa. geed ma aragtay in la isaaraan rabaa, dhul qurux badanaan ku dhashay. marka aniga arrintan midaan u fahmay waxay tahay maanta aniga tayda haddaan ka hadlo, midaan u fahmay waxay tahay gabadhan horta taariikhdaas way dhegeysatay. taarikhda hadda idin kaga waramaya horta way dhegeysatay saan jeclahay aniga, laakiin aniga waxaaba cilmi qeyb ma igiyo waxaabay wixii dhici doono iyo wixii dhacay oo aniga meeshana aana joogin aniga ma sheegi karin. laakiin qiyaas ahaan waan leeyahay, ilaahayna qiyaas woo ii abuuray aniga, ilaahay qiyaas woo ii abuuray. okay gabadhan taariikhdaasay dhegeysatay, ama gabadhan miday noqon kartaa. miday noqon karta waxay tahay gabadhaana maskaxdeeda fadhin inay tahay ay la tahay. okay haddana taas iidoona haddayna noqonin xataa laga yaabo gabadhan inay qof dragis oo yahay, laga yaabo wallahi inuu qofkan qof dragis oo yahay oo maskaxdiisa dhan aysan joogin. geedaa la isaarayaa dhahday. war geed haddaa lagu saaro, war haddaan lagu duugan kor iyo hoosba ilaahay waa la kulmay. wallaahi waa la kulmay, waana xaq geerida. qabri ha lagu geliya ama banaanka ama ha lagu gubo, ciqaabti waa la marale. qabri ciqaab haddaa lagu maro ama banaan ku mar, ilahay ciqaab buu ku marsiinaa, kor iyo hoos ilahay ciqaab buu ku marsiinaa haddii qof dambiile aad tahay. marka gabadhan walaasheena waxaa waaye horta saa idan sheega waaye, horta waxaa jirto maamalyuun way ka dartay, qof walba wuu ka daray. dadka waxay raadinayaan subscribe ma ila tahay aniga ma ogi. war aniga subscribe haddaan raadinayo shactiraa la imaan karaa, waxyaalo kalaa la imaan karaa, adiga wixii aan igu soo kordhaa la imaan karaa. laakiin diinteedana aan iga dhaawacaynin iyo waxaa ii sheegtaa qarankayga soomaaliyeedna inaan aniga aana ku xadgudbeynin, ama nasabnimadeydii oo soomaaliyeed inaan aniga meel aan ugu dhacaynin. ya hungurigaas meel maigridaayo. laakiin hunguri haddaa raadinaysid waxaa lagu raadiyaa siyaabado badan aa lagu raadiyaa.
maskaxyo badanaa keensan kartaa. war ilaahay dadka wuxuu naga dhigay caqliga u saaxiibka ah. ilaahay caqliga noo yeelay marka caqligan inaan ka xisaabtanno way gabadhaana marka hadday xanuunsan tahay allah caafiyo haddee drugs iyo waxaas ay isticmaashanay drugska ilaahay inuu ka soo hanuuniya ugu duceynayna ma garatay haddii taariikhdaas horena oo diiniyana ay dhageysta taariikhdaas ee taariikhdaasna ay ku duugan tahay war ilaahay wuuba kusii og yahay wax suurtagal ma ah qofkaasiiti oo taariikhdaas iyo waxaas ee ku dhacday qofkaas waxaa waaye ma uusan ogeyn ilaahay wuu kusoo saaraa ma uusan isdhehin laakiin muslim oo ahay laakiin cabsida ilaaha ku weyneed laakiin adiga haddaa isdhehayso qofkaas taariikhdoo maray camala mara marka ilaahay wax walbaa samaynaysa uu sii og yahay marka waxaan ku dhihi lahay allah kusoo hanuuniyo dhan walbana allah kuu soo hanuuniyo waa ka darteen soomaaliya dhammaantiina wallaahi waa laga daray social media haddaa fiirisa dhammaan waa laga daray war hunguri raadi ama raadi wax allaala waxaa doontid laakiin waxaa la fiiriyaa maskixiyan wixii adiga ku kala kacaayo oo adigana waxba aana kuu dhimaynin marka haddana waxaa idin leeyahay aniga meeshaas ayaa idinku salaamayaa bye bye unsaney korka shid hoos ka shid